Dunidan casriga ee maanta aynu joogno waa duniya wax walba ay u sii socdaan dhinaca tiknoolajiyadda. Waxaa laga yaabaa inuu yar yahay guri aan maanta laga isticmaalin wax tiknoolajiyad shaqo ku leh. Guriga ugu yar waxaa laga helaa toosh kaas oo habeenkii la isticmaalo. Haddaba shay kasta oo la isticmaalaa wuxuu yeelan karaa faa'iido iyo dhibaato intaba. Muuqaalkan waxaan uga hadli doonaa faa'iidada iyo dhibaatada tiknoolajiyadda. Adigoo mahadsan, fadlan muuqaalka like saar. Haddii aan ku horumarno faa'iidada tiknoolajiyadda, solar, awoodda qorraxdu waa hal abuurka cusub ee dunida maanta. Tani waa mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu wanaagsan ee tiknoolajiyadda tamarta qorraxda, taas oo aan waxyeello u geysan deegaanka. Waa wax cajiib ah inaan isticmaali karno awood koronto oo laga dhaliyay qorraxda annagoo u isticmaalayna baabuurta, nalalka wadooyinka, tooshashka gacanta, dhismayaasha, guryaha, warshadaha si loo soo saaro tamarta korontada ee iftiinka qorraxda. Iibka isticmaalka tiknoolajiyadda casriga ah, dadku waxay si sahlan wax uga iibsan karaan oo ku iibin karaan alaabadooda dunida iyagoo isticmaalaya internetka. Waxaa jira noocyo kala duwan oo shabakado internet ah iyo software kuwaas oo bixiya iibinta iyo iibsashada adeegyada khadka sida Amazon, Alibaba iyo kuwo kale. Alaabta ay iibsadaan dadku waxaa loogu keenaa dhowr maalmood gudahooda. Sidoo kale waxay dalban karaan cunto. Waxaa jira dukaamo badan oo laga heli karo suuqa kuwaas oo bixiya dalabka online-ka ah iyo habka gaarsiinta. Madadaalo, waxaa jira qalab tiknoolajiyad casri ah oo badan oo loo isticmaalo madadaalada, geemamka lagu ciyaaro, muuqaalada qosolka, muuqaalada cayaaraha, social mediaha, kombiyuutarada, taleefanada gacanta, qalabka VR iyo qaar kaloo badan. Qalabkan waxaa inta badan loo isticmaalaa madadaalada. Dadku waxay inta badan isticmaalaan aaladaha noocan ah waqtigooda firaaqada. Caafimaadka, waxaa jira qalab badan oo tiknoolajiyadeed oo loo isticmaalo isbitaalada kuwaas oo u oggolaanaya dhakhaatiirta inay si fudud ula socdaan caafimaadka bukaanada. Qalabka tiknoolajiyadeed ee loo isticmaalo caafimaadka waxaa ka mid ah kombiyuutarka wadnaha, kombiyuutarka caloosha, iskaanka, qalabka indhaha lagu cabiro, qalabka dhagaha iyo kuwo kaloo badan. Dunidan casriga ah ee maanta, inta badan isbitaaladu waxay adeegsadaan tiknoolajiyadda. Waxbarashada, tiknoolajiyaddu waxa ay sidoo kale door muhiim ah ka ciyaartaa dhinaca waxbarashada. Waxa ay faa'iidooyin badan u leedahay ardayda iyo sidoo kale macallimiinta. Waxaa jiro qalabyo badan oo elektaroonig ah iyo software ka caawiya arday badan xagga waxbarashada, taasoo keenaysa inay ardaydu xiiseeyaan waxbarashada. Beeraha, tiknoolajiyadda ayaa door aad muhiim ah ka ciyaarta beerashada. Waxaa jiro mashiino badan oo tiknoolaji ah oo loo isticmaalo beeraha. Shaqadu waxay u noqotay mid aad ugu fudud beeralayda, taas oo ay ugu wacan tahay hal abuurada cusub ee tiknoolajiyadda. Waxay si fudud ugu shaqayn karaan waqti yar oo kooban iyagoo wata mashiinada tiknoolajiyadda. Isgaarsiinta, dunida maanta isgaarsiintu waxa ay noqotay mid aad u fudud in dadku ay wada xiriiraan oo ay la xiriiraan dadka adduunka oo dhan, waxaana sabab u ah farsamada tiknoolajiyadda. Taleefanada gacanta ayaa ah tusaalaha ugu wanaagsan ee tiknoolajiyadda isgaarsiinta. Ka hor inta aan la alifin taleefanada gacanta, dadku waxay isticmaali jireen waraaqo ay kula xiriiraan eheladooda iyo asxaabtooda. Aad bay ugu adkeyd in ay dadku u wada xiriiraan waraaqado, sababtoo ah dirista waraaqaha waxay qaadataa waqti badan iyo qarash. Laakiin ikhtiraacigga taleefanada iyo mobilada kadib, waxaa aad u fududaatay in dadku ay ku wada xiriiraan ilbiriqsiyo gudahood, weliba si maqal iyo muuqaalba ah. Safarka, dunida maanta gaadiidku aad buu u fudud yahay tiknoolajiyadda awgeed. Waxaan si fudud u qiimeyn karnaa masaafada u dhaxaysa Sacuudi Arabiya iyo Bakistaan waa qiyaastii 2500 oo kiiloomitir. Waxaan si fudud ugu safri karnaa ugu badnaan 3 saacadood. Ka hor ikhtiraacigii diyaaradaha, dadka waxay ku qaadan jirtay waqti badan ilaa 1 sano si ay u gaaraan Sacuudi Arabiya iyagoo ka yimid Bakistaan. Sidaas darteed, tiknoolajiyaddu waxay noo fududaysaa safarkeena. Maadaama aan xusnay faa'iidooyinka tiknoolajiyadda, sidoo kale waa inaan sheegnaa dhibaatada ka dhalan karta isticmaalka khaldan ee tiknoolajiyadda. Dhibaatooyin caafimaad, tiknoolajiyaddu waxay saamaysaa caafimaadkeena haddii aan u isticmaalno si ka duwan sidii loogu
loogu talagalay. Waxaa jiro noocyo kala duwan oo cudurro ah oo laga helo dadka waxaa sababa isticmaalka badan ee tiknoolajiyadda. Qaar ka mid ah saameynta xun ee tiknoolajiyadda ayaa waxaa ka mid ah waxyeello aragga ah, taas oo ay sababto iftiinka aaladaha tiknoolajiyadda sida mobilka iyo kombiyuutarka. Dhaawac maqalka ah oo ay sababto aaladaha wax lagu dhageysto, dhumista miisaanka, kansarka maskaxda iyo xanuuno kale. Hoos u dhaca xiisaha waxbarashada. Xaqiiqdii tiknoolajiyaddu waxay caawisaa arday badan, laakiin isticmaalka badan iyo la qabsiga tiknoolajiyadda waxay lumisaa xiisaha daraasadda. Mararka qaar waxaad arkaysaa arday ciyaaraya game xilli ay daraasadii jirto. Sidaas darteed waxaan oran karnaa tiknoolajiyaddu waxay ardayda ka jeedisaa waxbarashadooda, hadafkooda iyo hamigooda haddii ay si khaldan u isticmaalaan. Dhibaatooyinka deegaanka. Wasakh kasta oo ka jirta deegaan waxay dhibaato ku tahay bini'aadamka iyo noolaha deegaankaas. Saameynta xun ee ay tiknoolajiyadda casriga ahi ku leedahay deegaanka waxaa ka mid ah wasakhowga hawada. Warshadaha iyo gaadiidku waxay abuuraan gaas khatar badan waxayna wasakheeyaan hawada. Sawaxanka iyo qaylada mashiinada culus ayaa dhibaato u keeni karta maqalka aadanaha iyo noolaha kale. Shaqo la'aan. Tiknoolajiyadda casriga ahi waxay bedeshay shaqooyin badan oo bini'aadamku qaban jiray. Mashiinada iyo robotyadu waxay qabanayaan isla shaqada ay dadku qabtaan. Shirkado badan ayaa warshadahooda wax soo saarka ku isticmaala mashiino iswada iyo robotyo si ay u horumariyaan wax soo saarkooda una yaraado mushaarka shaqaaluhu. Halkii robot ayaa qabanaya shaqada 10 qof, taasina waxay keenaysaa inay shirkaduhu ka maarmaan shaqaalaysiinta bini'aadamka. Dagaalada. Tiknoolajiyaddu waxay caawisaa samaynta madaafiicda, hubka militariga iyo hubkii ugu dambeeyay ee dagaalka ee u baahan in la tijaabiyo. Haddaba marka uu hubkaasi galo gacanta dagaalamayaasha ama qabiilada, waxay u adeegsan karaan aargoosi iyo colaado. Tiknoolajiyadda ayaa caawisa soo saarista hubka halista ah iyo qaraxyada, taas oo dhibaato weyn u geysata dad aan waxba galabsan oo bulshada dhexdeeda ah. Yaraynta isticmaalka maskaxda. Dadku waxay had iyo jeer isticmaalaan taleefanadooda gacanta si ay uga seefgareeyaan nambarada eheladooda iyo si ay wax ugu xisaabiyaan. Waxaa laga yaabaa xisaab fudud ama number aad korka ka xifdin karto inaad ku hadlayso taleefankaaga. Taasina waxay keenaysaa inay yaraato isticmaalka maskaxdu. Luminta waqtiga. Tiknoolajiyaddu waxay lumisaa waqtigeena qaaliga ah. Dhab ahaantii tani waa mid ka mid ah saameynta xun ee tiknoolajiyadda. Waxaa jira qalab ka mid ah tiknoolajiyadda casriga ah oo dadka intiisa badan ay isticmaalaan, kaas oo luminaya waqtigooda qaaliga ah sida telefishinada, geemamka, daawashada aflaanta, social mediaha, taleefanada gacanta iyo kuwa kale. Haddii aad isticmaasho xilliga shaqada, xilliga waxbarashada ama xilliga jiifka, waxaa kugu dhici kartaa shaqo la'aan, waxbarasho la'aan iyo hurdo la'aan. Amniga xogta. Waxaa laga yaabaa inaad kaydsato xog ama lacag adigoo isticmaalaya tiknoolajiyadda. Mararka qaar waxaa dhici karta in ay lunto ama la xado xogtii iyo lacagtii aad kaydsatay. Inkastoo aad looga taxadaro amniga xogta, mararka qaar waxaa dhici karta in ay shaqayn weydo ama ay soo wajahaan caqabado kale. Ugu dambeyntii, waxaa cad in tiknoolajiyaddu leedahay faa'iido iyo dhibaato intaba. Waxay faa'iidadu imaataa markii aad u isticmaasho sida wanaagsan in aad wax ku barato ama aad ku shaqaysato, balse dhibaatadu waxay imaanaysaa markii aad u isticmaasho si xad dhaaf ah. Haddaba waa inaan isticmaalnaa tiknoolajiyadda si aan caalamka ula tartanno, iskana yareynaa isticmaalka xad dhaafka ah. Waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Fadlan channelka subscribe saar. Mahadsanid.